deegaano ka tirsan Puntland waxaa la soo gudboonaaday xaalad cakiran kadib markay dabayaaqadii bishii la soo dhaaftay ku dhufteen roobab watay dabaylo iyo daadad xooggan oo goodoon ka dhigay marinadii u muhiimsanaa deegaano ku yaalla bariga fog ee Soomaaliya kuwaas oo ay sababtay inay adkaato xog iyo xaajo laga helo nolosha dad kor u dhaafaya qiyaastii 20,000 oo qoys oo ku goodoomay labadii toddobaad ee la soo dhaafay dhulkan oo masaafo badan ka durugsan waddada laamiga dhibaatada ugu culus oo taagani waa tub ka dhalatay burbur iyo baabaa daran oo la soo gudboonaaday marna muhiim u ahaa dadka iyo gaadiidka u kala gooshi jiray dhul badan oo ka tirsan gobollada bari iyo Gardafuu waxaana dumay jidadkii isku xireeyay tuulooyinka iyo magaalooyinka Kalaale, Gumbax, Xaafuun, Hurdiya, Dardaare, Foocaar, Daldoore, Hoosingaabac, Taageer, Waadi Khayr, Baargaal, Fadoolo, Tooxin, Saynweyn, Sanyar, Ceellaas, Ceelquud, Bareeda, Caluula, Xaabo, Geesaley, Murcanyo, Dhurbo iyo dhul kale. Lafagoroyo waa magaca dhabaha ugu weyn oo halbowlaha u ah isu gudubka gobolka Gardafuu waxaa burburay 46 goobood oo kamid ah halka qaybta buuraleyda oo dhabahaas kamid ah 36 goobood oo kale ay go'go'een waxaana kamid ah meelaha dhibaatada ugu culus gaadhay laga soo bilaabo deegaanka Fogoolo ilaa iyo deegaanka Buuq oo qiyaastii isu jira masaafo gaaraysa 20 kiiloomitir si la mid ah waxay waxyeello u soo gaadhay marinka dalcadda Kalaale oo isna xiriiriya degmooyinka Baargaal, Gumbax, Xaafuun iyo tuulooyin badan oo ay ka mid tahay tuulada Hurdiya. khuburo iyo injineero ka socday hay'adda wadooyinka Puntland PHA ayaa toddobaadkii la soo dhaafay u tagay halkaas qiimayn iyo kuurgal ku aadan waxyeelada gaadhay wadooyinka xogaha ay soo ururiyeen waxaa ka mid ah boholo iyo togog cusub oo inta badan roobabku ay ka sameeyeen dhulka waxaana kooxdan ka socotay PHA ku adkaatay gaadiidkay wateen inay ku tagaan deegaanada qaar goodoonsan taas oo ay uga maarmi waayeen masaafooyin gaaraya 18 kiiloomitir lugtooda inay maalaan si ay macluumaad dhamaystiran ugala soo noqdaan
meeshaan hunguriga waxa waaye dhul badan oo ka bariga ah iyo Gardafuu gobolka Gardafuu iyo gobolka bari bay hunguri u tahay waa meesha kaliya wuxuu soo maraayeen wixii hadda suuq geynayaan meesha mari jireen way ay ka xeebaha sida kalluunka iyo wixii beeraha ka soo go'ay xoolaha la ganac geysanayo dhulkan maydiga iyo cawda iyo waxyaalahaas oo dhan waxay mari jireen wadada tan sida aad u ka arki doontaan sawirka baabuurtii laan karuusarada aanu wadanay sida ay ku mareen waa arkayseen baabuurta kale tan iyada warkeeda badaa wax gaari weyn la yiraahdo iyo baabuurta kale oo waa weyn oo kuwa ka yar yar oo ku xiga ah madax ka nooshay sida dadku Soomaalidu u taqaano oo xeebahan u badan meel ay hawaysan karaan ama marayaan ma aha marka dadka kan waxay ku sugan yihiin xaalad go'doon ah oo aad iyo aad khatar u ah oo noloshoodu ay halis ku jidho sababtoo ah raashinkuna waa gaabaabsi wax kale oo hadda meel kale uga soo maraana ma leh marka annagu farsamo ahaan baan meesha u nimi wixii farsamo ah waa annaga ayaa ka mas'uul noqonayna oo diyaarinayna haddii ilaahayga idmana waxaan isku dayaynaa inaan sida ugu dhaqso badan u soo gurmano oo loo furo wadada tan laakiin dadkii waxay u baahan yihiin gurmad quudin in la soo gaaro waxa la soo mari karaa dhinaca iyo noobir laga soo wareego xagga laga yimaado xaafun maahane dhinaca kan boosaaso lagama iman karo boosaas hadii laga yimaado waa la maraa ama xaafun xageeda ama meel dhinacaan oo leeyahay buqcad hotel in la soo maro xagga laga yimaado mooyaane wax wadaatan mari karaya ma jiraan marka sidaas waxaan ku baaqaynaa dadka in la soo gaaro oo wuxuun quudina la soo gaaro dadkaanu waa go'doon xaaladoodana waa noloshooda halkaan ay ku tiirsanay meesha ay ku tiirsadeen mid xaaladeeda waa sawirkaas uga jeedaan annaguna waxaanu cadaynaynaa in ay dhibaato weyn ka taagan tahay wadatan oo aan la mari karin intaasaan anigu oran lahaa ka sokow burburka iyo baabaa roobabku u geysteen jidadkaas waxaa kaloo jira halis dhanka cuntada ah waxaana mar qura cirka isku shareeray qiimaha maciishadda iyadoona toddobaad gudihiis kiishka bariiska ah uu gaaray in ka badan $40 oo u dhiganta sarifka shilinka Soomaaliga $1,440,000 halka caagadda saliidda cagacagaynayso qiimo gaaraya $10 oo u dhiganta $360,000 waxayna taasi uga dhigan tahay taariikhda inta la xasuusto dhibkii ugu weynaa oo goodoon geliya dad iyo dunyo fara badan oo ku nool deegaanno ka tirsan gobolka ugu weyn Soomaaliya bari iyo gobolka ka sii farcamay ee Gardafuu aniga waxa la yiraahdo magacayga Saciid Maxamuud Axmed waxaan ahay gudoonshihii magaalada la yiraahdo Gargoore bismillaahir rahmaanir rahiim waxa noo mari jireen ama magaalooyin badan ba u mari jireen meesha la yiraahdo xaafun hurdiye meesha la yiraahdo gumbax meesha la yiraahdo Gargoore iyo tuulooyinkan oogada meesha la yiraahdo maxay ahaydey ilaa caluule degma caluule waxa soo dhan waxay oo ahayd jidiinka wax noo soo maraan bay ahayd wadadii waa ay gooday hadda injineero iyo waa joogo oo way gooday waa ibir bay noqotay wax laga tagay bay noqotay sawirkeeda iyo iska arki doontaan marka waxaan rabnaa sidii wadada wax looga qaban karo in iyo dadka awdalan oo cunadiiba ka awdan tahay oo meel baabuur soo maraba aan lahayn waxaan rabnaa in si degdeg wax nolola qabto